مسؤول كلبات يقول جميع قرن إنسان مسؤولية كواد من كي قاله طلبان أنا قاله صدق هذا ويا مسؤول كلبات يقول يقول hooyadii baa ka mas'uula ana mas'uul baan ka ahay hooyadii may dhashay waa ma dhacaysatay guriga anaa ka mas'uulaana anigu qaba guriga waxa ka mas'uula hablow oo guriga qoyska taaga waxa ka mas'uula ninka gabadha u soo gogol fadhiistay ee guursaday horta guriga maxay ka tahay gabadha markaa mas'uulka labaadna waxa guriga ka ah mas'uulka labaad ee guriga miyaa garanaysaan sodohda weeye mas'uulka labaad ee gurigu horta inantu bilaash looma dhalin reer baa ku soo tabcay iskuul bay dhigataa jaamacad bay dhamaysay way shaqaysanaysay reerkooda biilinaysay intuu sida caruusada soo qaatuu dhaho gurigan ii dhex fadhi hooyadii baa ka mas'uulaana mas'uul baan ka ahay hooyadii may dhashay waa ma dhacaysatay guriga anaa ka mas'uulaana anigu qaba ilaahay nin buu iga dhig guriga anaa ka mas'uule ilaahay nin buu iga dhig haddana hooyaday gabadha isku wadi kari waayo oo isku hayn kari waayo hooyaday baan ugu waaya guriga waxaa mas'uul ka ah aniga iyo ninka السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصحابتا كسر هذا معلم الجنال جمعة وانا السنة مركوات حنفلا إن لو في عينها هاي دمان أنا الحمد لله أسكفي عنها حنفلا إن هنتي قفل بمشي جو وكعافات قبو إلى هذا الكيس إن شاء الله إن وحان هوا إن هنتي وحان أرك أنا يا حمق الجري مركلا يا سمعنا حدا الجري مركلا يا ياسين كلا قصدا arrintan oo runtii lagu qabtay doodna lagu qabtay Universal TV ee magaalada Hargeysa ee looga doodayo hooyada guriga ma keeni ama xaaska fasax ka qaadanaysa waxay noqotay arrintii ugu saameynta badneed baraha bulshada saacadii la soo dhaafay xitaa waxaan arkay kuwa riwaayada ka sameeyay oo runtii karbaash xun la dhacay dadka sax u fikiraya oo dhahayo hooyaday fasax aan ka qaadanaa marka guriga aan keenayo iyo wax la midka ah wax noqon kara gabar iyo wiil labadaba sabramish dood ku soo aragteen kuma sii fogaanayo waxaan rabaa waxa ogin horta dhamaanteena diinta marka la dhaho ee dad islaam ah in ahal istirama fiicna wixii islaamnimada runtii ka soo haro waxaan u maleeyaa qof markuu islaamnimadiisa qadariyo dhaqanka imaanayo waxa imaanaya macnaha hooyada sidoo qadarin jiray bari hore waxyaabo badan baa ku dul xigay laakiin diinta Allah mubana marka oo logic ahaan loo fikiro diiniyan waxa ognahay hooyada meesha la dhigay diinta meesha ay dhigtay macnaha mansabka ee hooyada siisay in xitaa diinta runtii ay ku celisay saddex jeer hooyo markii afraad aabalna which means hooyada waa qofka runtii oo muhiim ku ah noloshaada waayo waa qof ku soo macnaha علوش كوسا حباري طبعا دبعت بدن كاسو مرتي الآن هذا دويد على ماتين كاسو فكرتي مركي كسوي سيرونتي إله كسكو إيكارة تقف قنجارة اسكو فيلم على الربي إن أذيجا أو أذيجتت إن أذيجا معناها أو دواتت إن أذيجا الصراع أذيج عيد وحنا نسيت هذه حدا أنا الحاس كيف أسحك قادنا نيكا أسجع وحنا لا ودق كنت رجع الله قرط مركز سلوا فيريو نفسها سمعنا هذا السويري ننسي وقاعد نيكا أسجع ليا إنه كوده هدي هو يدي إلى صدقي سجورية إلى النولان يسا وأنا حاسس كويدو ده ولا هو يسا صعته لا صعب تعمل وير لوجيك ودي هو يدي معناها جوري هو يسا ذكر بتصا صعته لا صعب وإحنا عصامل ليا لكن مر والبا هو يدرس أتيهنا جوري صاب بقناس بقاش ومانس المها صاب بقناس المها أيوة أركزه حاسك فسحنا كسوق صوب مرتوع تا ايها odayga ku degdegay far badan oo lagu soo qabtay sida la mid ah gabadh nafteeda far badan lagu soo qabtay nafta waa la helay xitaa ku wax arkay dhahayo labo hal isku guuriyo hooyo macnaha hooyooyinka dhalan banaanka geeyaan labadaba ta ayda runtii horta anaka wixii ay ka fikirkooda u gooni ah ay ka u gooni oo ku qadarneena oo ku ixtiraameena laakiin wixii ku qaldiyihiin macnaheena waxyaabo noocaas camal ah oo ku degdegteen waana ku qaldantihiin bulshada Soomaaliyeed oo dad islaam ah hooyada meesha ay joogto dhamaantan wada ognahay cid ay ka qasanta malahan barnaamijkan oo runtii Universal TV ay qabatay ayaa wuxuu ahaan jiray barnaamij inta badan looga doodo arrimaha bulshada oo qaab kale ah laakiin kan waxaan u maleeyahay TV inuu ku fashilmay markaas uu fiirisid waayo TV ay qabtay qarash gareeyay wariyaasha oo barnaamijka qabanay TV lacag siiyay marka waa barnaamij wuxuu ahaa la soo qorsheeyay markaas uu fiirisid حتى دتك الدودة دد وحي أهين وجامعين وجامعة كبحي سامغلا لكن هو قف well educated أو جامعي
oo runtii dabcan qof markuu maadi barto diinin xitaa basically u dhisan yahay marka si loo fiiriyo weli ma arkin qof jaamacad ka baxay oo PhD holder ah oo diinin xitaa basically aan dhisnayn oo yara adagta in dhahay laakiin macnaha qofka inuu sheekh noqdo muhiim aha laakiin waxyaabaha oo asaasiga noloshu ah uu fahmi karaa qofka asaga oo dugsi dhigtay oo kitaabo kale aan raacin xitaa markaas u fiiris marka ilaa hadda waxaan fahmi lahay dadkan meesha horta laga keenay oo hooyada mansabkeeda iyo booskeeda iyo meesha ay joogto aan garanaynin xitaa commentiya markaa akhriyo dad waxaan arkaya ku dambaawayo dad dhan oo meel degan taayada waxaan dhihi lahaa waa qalad waayo waxaan sameeyey waa laba shakhsi ma ogi ummad dhan oo meel degan maaha waxaan filayaa waxaan ka wada inaa fahmi kartaan taranteeda inaan saxnaa rabnay oo ah dadkan waa dad fikirkan ayagu goonaya waa laba qof dadka la fadhiya xitaa ma la qayb markaas u fiirisid waa wiil iyo gabar laakiin macnaheeda maaha inay ka turjumayaan whole nation ama whole family oo meel degan inay ka turjumayaan macnaheeda maahan taasna waxaan dhihi lahaa dadka fikirka qaba dhahayo weligood saas ahayn camal wax fiican maaha taa ayadan naga daaya waxaan rabaa hal video oo sheekh caan ah aa taqaanaan waxa uu ka dhahay hooyada mansabkeeda iyo meesha ay ka joogto runtii ummad Soomaaliyeed ama qof walba oo islaam ah hooyada balaan daawan videogaas reerka ragga ayaa iskale hogaaminta taladu waxay ka go'aysaa waa ninka xaaska waa lala tashan karaa ninku naag xaaskiisa tala uu weydiin karaa laakiin go'aan qaadashada odayga ayaa iskale oo maxaa ilaahay yiri qiwaamada rag waxay ku heleen waa laba shay marka hore isku ilaahay ba kala fadlayba isku karti maaha isku quwad maaha isku dulqaad maaha isku aqli maaha ilaahay ba kala fadlay azza wa jalla nacam dumarka ragga shiddada adayga u qaaliba halka dumarkana dabacsanaantu ay qaalib u tahay odayga iyo ragga ka kanaan iyo adayg ayaa maaragtaan naxariis darro ayaad moodaa in ragga ku jirto halka hooyaduna ilaahay qaalib uga yeelay inay noqoto hooyo naxariis badan oo damqasho badan runtii kuma sii fogaanayno waa wuxuu ahaa barnaamij qaldan waayo wax walbaba diinta asaas looga dhigaa sheekana waa runtii u dul istaagay hooyada iyo qofka guriga mas'uulka ah marka gabadha waxaan dhihi lahaa walaalay waa qaldantay far badan oo soo qabtay culimada halkeeda dhigeyso ha degdegin kuwa kaleeto yar yar oo runtii soo kacayo dadkan dhegeysan doona waxaan dhihi lahaa yaan la waalin arrimaha waa arrimo oo runtii markaas u fiirisid aa u malaysay in meelo kale laga soo abaabulay laakiin dhaqan ahaan diin ahaan wax anaga lagu qaldi kara ma ahan ilmahan waa in laga qabtaa inay dhegeysan wax ama waayo waxaa laga yaabaa qof iska carruur iska ah dhowr toban jir iska ah oo runtii nolosha hadda ugu horeyso inuu waxaan dhegeysto oo uu dhaho hooyaday guri markay imaanayso inay xaajadii weydiisa waayo waxaa dhahay qof hiblow marka waxyaaba noocana kale waxaa fiican in dadka ay runtii ummadda ay ilmaha ka ilaaliyaan aysan baranin waayo berika ma waxaa laga ubadka inuu banaan ku dhigo markuu waxaan dhegeysto way ku saameynaysaa shakhsiyan marka si loo fiiriyo dadka dhahaya videogan ku dambaabay oo dhahayo macnaha doodan markay dhegeysteen commenti qaldan ka soo bixin waxaan dhihi lahaa walaalo waa qaldantihiin waxaan wax oo laba qof keliya ay sheegeen wax ummad dhan ee la qabta ma ahan arrinta ayadan waxaan dhihi lahaa ka fiirsada ku degdegina waayo in la dhaho a whole family ama a whole nation ee fikir noocan qaba waxaan dhihi lahaa wax qalad ah taa ayadana waa inaan saxan halkan usoo fadhiisanay asxaabta videogan manuusha dheeraanayo haddii aad ka hesheen runtii haddii kale tabo waxaan video waa in xaqiisa la siiyo subscribe-tuna waa inuu muhiim channelkana kala kiciya asxaabta cusub waxaan leenahay 1001 jeer kusoo dhawaada macalin channel